عشرين قلت إن شاء الله عشرين وحكو سابسنان دونا English new vocabularies أما af Soomaali eraya cusub oo soo dooranay oo aan ka soo dhaxaruurinay jilmado marka waxaan isku daynaa bal erey ahaan inaan u barano kadibna aan jilmado dhexgelina marka dhageysa aboon sida halkan inooga muuqata waxaa inoo qoran accident waxaan dhahaynaa shil gaari shil koronto shil guri shil qof uu galay ama dhaawac keena ama dhimasho keena accident waa shil injury waxaan dhahaynaa dhaawac fudud iyo dhaawac culus labadaba way noqon karaan arrogance waa qof isla weyn ama kibiraani ah aad bay noogu badan tahay enmity waa cadaawad laba qodob laba dal oo cadaawad ka dhaxayso laba shaqsi oo cadaawad ka dhaxayso enemy waa cadow laakiin enmity waxay noqonaysaa cadaawad dispute waa khilaaf dispute maxay noqotay khilaaf laba qof u dhaxeeya laba wadan u dhaxeeya laba bulsho u dhaxeeya dispute khilaaf dominate waa waxa weeye ka taliyaan ama ka taliya tusaale waxa weeye waa meel aad si xooga ku qabsatay ood ka talisid xukunkaaga hoos joogtaa ama cid baa qabsatay xukunkeeda hoos joogtaa laakiin si xoog ay kula wareegeen dominate la wareegid qabsashay noqonaysa waa garanay displace waa barakicin dad lagu soo duulay oo la barakiciyey abaarta dadka barakaysa colka barakiciya duufaaniya dabayluuna ay barakiciyaan iyaguna marka maxay noqotay displace barakicin destruction waa burburin wax burburiya sida biyaha ama roobabka oo kale sida maxaan ku dhahay fatahaadaha sida dagaalada oo kale burburin destruction waa burburin demand waa dalbashada ama dalbasho waxaad dalbanayso oo qofka dalbanayso ood leedahay waxaasaan kaaga baahanaya keen dalbasho disgust waa karaahiyo wax qofka aad ku samayso uu dhibsanayo ama adiguba nafsiyan aad dhibsanayso oo aadan jeclayn waxbaad samaysay waxaan ku idhahdaa qof ayaa wuxuu samaynayaa ficil aad u dhibsatid is just disgusted action ficil waxa weeye karaahiyo ama dhiba ama niyad jab keeni kara divergent waxaan dhahaynaa kala duwan waa wax kala duwan difference ay ka keenatay divergent kala duwan tusaale waxaan dhahaynaa qorraxdu markay soo baxdo iftiinkeedu hal meel uu ka soo baxaa laakiin jahooyin kala duwan ayuu aadaa waa garano convergent lidku ah waa wax asaguna isku dhafan ama isku mid ah hadda la yidhaha tusaalehaan aan dhahno biyaha dhana oo kale aan dhahno waxay isugu jiraan biyo iyo milix wax isku jira divergent wax isku mida convergent wax kala duwan negligence waxa weeye dayacaad wax la dayacay camal aan dhahno dayacaad negligence waa dayacaad wax la dayacay oo la baylaha tiri waaye ama la hagaajin waayo oo kala dheh negligent ayaan dhahaynaa dayacaad disseminate faafin sida coronaviruska oo kale hal qof inuu ka bilowdaa laga yaabaa kadibna uu wax badan ku faafiyo faafin ayay noqonaysa disseminate faafin maxay noqotay faafin discriminate waxa weeye iyaduna takoorid qof sida ama diintiisa lagu takooro midabkiisa lagu takooro ama qabiilkiisa lagu takooro ayay noqonaysaa haddaan mar labaad ku celino waxaan dhahaynaa accident waa shil injury waa dhaawac arrogance qof kibiraani ama isla weyn enmity cadaawad dispute khilaaf dominate ka taliyaan ama ka taliya ama qabsaday baa dheh dominatekaasay noqotay displace waxay noqotay barakicin distraction waxay noqotay burburin demand dalabaad disgusted karaahiyo ama niyad jab ah
divergent kala duwan, convergent isku mida, negligence waxay noqotay iyaduna dayacaad wax la dayacay, disseminate waxay noqotay faafin, discrimination ama discriminate waxay noqotay iyadana takoorid. Intaas ay ku daynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.